gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCD injineer Faysal Cali Waraabe oo muddooyinkii u dambeeyay safar ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Somaliland. Gudoomiyaha oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa kula hadlay warfidiyanadan waxa uu sheegay in haatan uu marayo dalku xaalad aanu filaynin isla markaasina maalinta Sabtida labada xisbi mucaarad ee ka jira Somaliland ay yeelan doonaan kulamo ay kaga tashanayaan xaaladda uu haatan dalku marayo isla markaasina ay ka soo saari doonaan warmurtiyeed. dalka maanta halku marayo marxalad aan islahayn weligii aalihiin dalku uu mari doonaa qiimaha dalku maraya gudiyo dibadba warwar weyn baa dadka umadayna haysta shacbigeeni markaa waxaan jecelahay insha allahu tacaala sabtida in labada xusbi aanu wada fadhiisano xaaladda dalku marayo inaanu go-aamo ka soo saarno xog intaanu hayno aan la wadaagdaan jecelahay insha allah shacbi weynaha reer Somaliland. markaa maanta intaas baan isku dhamaysanaynaa sabtana insha allahu tacaala aanu qaraarada labada xusbi waxaan labada fulineed ay shiraan xusbigu arrimaha gudaha iyo dibadda dhaqaalaha nabadgelyada wadanku halku marayo maanta aanu insha allahu tacaala aanu ka soo saari doonaa go-aamo jecelahay inaan umadayda baraarujino aanu update gareyno halku dalku marayo ayaan shacabna markaa saasaan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala waa inoo sabtida insha allah. Caydaruus Maxamed Caynaan goobjoog magaalada Hargeysa.